waxqabadka mudaxileedka dawlad kasta waa arrin mudan in dib loo eego si loo qiimeeyo halka laga taagan yahay loona ogaado guulaha laga gaaray iyo meelaha u baahan in la xoojiyo si horumar loo gaaro. tan iyo markii dhidibada loo taagay dawladda Jubbaland waxay ku howlaneyd qorshayaal iyo mashaariic waaweyn oo lagu xoojinayo adeegyada bulshada, dhaqaalaha iyo amniga. 22 Agoosto 2019 mudaxileedkii labaad ee madaxweyne Axmed Maxamed Islaam loo dhaariyay xilka madaxweynaha waxay dawladdiisu xoogga saartay dhismaha kaabayaasha kala duwan iyo horumarinta hay'adaha dawladda. amniga iyo xasiloonida. amniga iyo xasiloonidu waa tiirarka ugu muhiimsan ee nolosha bulsho kasta. waa labada arrimood ee suurtogeliya horumarinta dhaqan dhaqaale, siyaasadeed iyo bulsho, iyagoo siinaya dadku fursad ay ku noolaadaan nolol nabdoon. bulsho kasta oo amni iyo xasilooni haysataa waxay leedahay awood ay ku kobciso waxbarashada, caafimaadka iyo ganacsiga, halka amni darrada iyo xasilooni la'aantu ay sababaan dib u dhac iyo burbur dhinacyo badan leh. dawladda Jubbaland waxay dib-u-dhis ballaaran ku samaysay hay'adaha kala duwan ee amniga iyo ciidamada, iyadoo muddadaas la tababaray ciidan xoog leh oo ay dawladdu u dhammaystirtay waxyaabaha aasaasiga ah sida inay helaan xuquuqdooda si joogto ah, saanad ku filan si howlaha amniga iyo xoreynta ay u noqdaan kuwo miro dhala. waxaan rabaa inaan idiin hambaliyeeyo oon idinka mahad celiyo dagaalka aad gasheen iyo waxa aad xaqiijiseen ee dhabta ah. waxaad xaqiijiseen oo xaqiiqo dhab aad noqotay dagaalka aad gasheen iyo saaad ugu hilbadirateen iyo saaad nimankaas qaadasho waa uga dhigteen. waa mid Soomaali oo dhan idinku soo hambaliyeynayso oo fariinta aan idiin wadaay ay tahay mid qof kastoo mas-uul oo Soomaali oo ugu horreeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo uu ku xigay ra'iisul wasaaruhu oo guddoonka labada aqal ay ku jiraan oo xildhibaanada iyo golaha wasiirada ay ku jiraan heer state iyo heer federaalba oo madaxda dawladaha xubnaha ka kulligood ay ku jiraan ay soo fareen inaan idinka hambaliyeeyo arrinta aad samayseen. waxa gaarayay ee dhibaato ee maanta shacabka ku dhacdayna ay tahay mid qof kasta oo Soomaali maanta uu ku farxayo. أنا رجينا عيدان كودن idinku dayan doonaan. ciidamadan ayaa si dardar leh u waday howlihii loo igmaday iyagoo xoreeyay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, waxaana guulaha waaweyn ee laga gaaray ka mid ah in la isku furay jidadka dhaadheer ee isku xira Kismaayo iyo Afmadow iyo deegaano kale oo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose. 21 bishii Janwari 2023 ciidanka daraawiishta dawladda Jubbaland ayaa qawaariijta kala wareegay deegaanka istaraatiijiga ah ee Janaac Cabdalle, kaas oo 60 kiiloomitir u jira magaalada Kismaayo, dhacana jidka isku xira Kismaayo iyo Afmadow. waa deegaan istaraatiiji u ah gobolka Jubbada Hoose, wuxuuna qawaariijtu ahaa ilo dhaqaale. xoreynta Janaac Cabdalle waxay horseeday inay isku xirmaan degmooyinka Afmadow iyo Kismaayo. madaxweynaha dawladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo booqday deegaanka Janaac Cabdalle ayaa ciidanka u hamriyay xoreynta deegaanka. dad shacab oo baahan oo dhibaataysan oo wax ay helayaan oo wax public fasi ama khadamaadka caamka ah ayna jirin, waxay helayaanna ayna jirin, wax laga qaadamay wax dib loogu soo celinayaana ayna jirin. baad idinku waxaad sabab u noqoteen inay biyihii helaan, raashin loo keeno, dawadoodii laga fakaro, nolosha dadkaas bal dib in loogu soo celin kara in laga shaqeeyo. waxaad ogaataa adigu aad rafaadid, laakiin maamada iyo odayga iyo ilmaha yar ee shacabka ah waxay u tahay wax weyn. nooca ay noqonayso ilaaladiisa iyo jiritaankiisa iyo mas-uuliyadda aan qaadnay waxaa ugu horreeya waa dadkaa shacabka ah. 22 Julaay ciidamada daraawiishta dawladda Jubbaland ayaa qawaariijta ku jabiyay dagaal ka dhacay deegaanka Buulaxaaji, iyadoo in ka badan 200 oo qawaariij ka tirsan lagu dilay dagaalkaas, sidoo kalena lagu qabtay 50 dhagar qabe, waxaana ciidamadu ay dagaalkaas ku furteen hub fara badan. isla 24 bishaas madaxweynaha dawladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa booqasho dhiirigelin ugu tagay guutada Birjeex ee guusha ka gaaray dagaalka ka dhacay deegaanka Buulaxaaji, isagoo bilad sharaf guddoonsiiyey saraakiisha howlgalkaas hogaaminaysay, wuxuuna min hal darajo guddoonsiiyey dhammaan askartii dagaalkaas ka qayb gashay oo ay ku jiraan kuwii dagaalka ku shahiiday. waxaan saaka idinku imid inaan ka idin xaqiijiyo inaan laydinka noqonaynin.
وقرب وهذا خدمات كده يبني رايدين الله يدين سماينيو وحبرشدي عافماتكي بيهي إنا لالي انت شقاء الدولة اللي وضعنا الله يدين قلناي وحانو مالين الراشين الله يدين سودري ويدين سود قاري سوما وحايدين كواريا وانت ريد كان ان دخاتي استطاع لغا فرو اسكولا لفرو مساجدة إيا لغا شقايا دعوة محكمة الله يدين كانوا يقولوا عاجي شبابا قعنت يدين كواريس الدولة با يدين تبي لوما دعوون كرو ولوما كرو يرقون كرو شرع ويسكو كينديريين تولي أصبح لغا شقايا إلا رأيه يدينكا رأيه يدينكا رأيه يدينكا كل صومالي باتين مسلمين باتين رجب الله باتين maamulka la idin magacaabo dawladda idin magacaabo waa maamul dawladda ay soo magacaabeyso oo tayo leh oo waxdintana inuu raac cali yahay iyo inuu raac qolac yahay inuu raac qasac yahay muhiimad ma samaynayso deegaanada Buulxaaji Harboole Miido Qumbi Weelmaaro Qudus Beerxaani iyo kuwa kale ayaa kamid ah goobaha qawaariijta lagu jabiyay ciidamada Jubbaland ayaa si buuxda u la wareegay qaar kamid ah xariyaha ay ka bixeen ciidanka ATMIS dhammaan mas'uuliyadihii sugidda amniga ee deegaanada Kudhaa Cabdirabbiroole Ceelwaaq iyo Buurgaal taas oo muujinaysa awoodda ay xoogagga Jubbaland sanadaha soo aadan kula wareegi karaan dhammaan sugidda amniga guud ee Jubbaland amniga iyo xasiloonidu waa laf-dhabarta horumarka iyo badbaadada bulsho kasta si loo xaqiijiyo amni waara waxaa laga maarmaan ah wada shaqayn joogto ah oo dhexmarta dawladda hay'adaha amniga iyo bulshada waxaa kaloo muhiim ah in lagu dadaalo ilaalinta amniga iyo xasiloonida oo ah mas'uuliyad wada jir ah oo saaran dhammaan qaybaha bulshada dhaqaalaha iyo shaqo abuurka kobaca dhaqaalaha waa kororka wax soo saarka guud ee dal kaas oo ku salaysan kor u qaadista maalgashiga ganacsiga iyo adeegyada kale dhaqaale xooggan ayaa horseeda horumar dhinac walba leh sida caafimaadka waxbarashada iyo adeegyada bulshada halka shaqo abuur uu muhiim u yahay yaraynta saboolnimada kobcinta xirfadaha shaqaalaha iyo dhisidda nolol tayo leh oo lagu tiirsan yahay dhaqaalaha dawladda Jubbaland ayaa sare u kacay 5 sano ee tagtay taasina waxaa sabab u ah dakhliga gudaha oo kordhayay sanadba kan xiga howlaha shaqo abuur ee dhalinyarada ayaa sidoo kale dawladdu diiradda saartay ayadoo la siiyay tababaro dhanka xirfadaha agab iyo shaqooyin ay ku horumariyaan noloshooda dawladda ayaa dhiirigelisay beeralayda xoolo dhaqatada ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe oo ah isha ugu weyn ee shaqo abuurka bulshadeena kaabayaasha dhaqaalaha dawladda Jubbaland waxay 5 sano ee la soo dhaafay xooga saartay dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyadoo hirgelisay wadooyin laami ah oo inta badan wali shaqadoodu ay socoto qaar ka mid ahna hadda la gabagabeeyay taas oo wax badan ka taraysa horumarka dhaqaalaha iyo socodka bulshada deegaanada Jubbaland 23 bishii February 2022 madaxweynaha dawladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa dhagax dhigay wajigii koowaad ee dhismaha wadooyinka kaas oo lagu dhisay 6 wado oo laami ah masaafo ahaan ah ka kooban 8 kiiloomitir waxaa intaas xigay 14 kiiloomitir oo lagu dhisay 12 wado oo laami ah iyo 24 kiiloomitir oo qorshaysan ayadoo si guud Jubbaland ay tahay in laga fuliyo 74 kiiloomitir oo laami ah oo ay ku jirto wadada dheer ee isku xirta Luuq iyo Dolow dhismaha 2 wado oo laami ah oo laga dhisayo Doobley iyo Afmadow 7 bishii Janwari 2023 madaxweynaha dawladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa xariga ka jaray dhismihii wajigii koowaad oo ku soo dhamaaday si guul ah waxaan u rajaynayaa reer Kismaayo gaar ahaan Jubbaland guud ahaan Jubbaland gaar ahaan reer Kismaayo in arrintan u noqoto bilowga barnaamijka wadooyinka oo dhowr iyo 30 kiiloomitir oo maanta 8 kiiloomitir ugu horeysay qadada la bilaabayo aan dhagax dhignay insha Allah ay si smooth ku socon doonto shirkadahana waxaan ku qiimeyn doonaa maaha qalabkay wataan iyo waxay la yimaadeen shaqada ay qabtaan waqtiga iyo quality-ga sida ay shaqada noqoto hadii la yiraahdo taasaa waxay aan markii hore select gareynayna priority 1 2 3 4 aan siinay inay ahayd cidda hawshan ku guuleysanaysa waa inay cid wax qaban karta ee laga daayo saaxiib iyo hebel baa rabaa iyo hebel baa kan ku waxaysanay
dowladda Jubbaland ayaa in muddo qorsheynaysay dhismaha garoonka diyaaradaha ee degmada Afmadow iyadoo hadda ay diyaar tahay lacagtii lagu dhisi lahaa lagana soo gudbay qiimeynta iyo nashqadeynta sanadkan cusubna la gudagali doono dhismaha garoon casri ah oo laga dhisayo degmada Afmadow. dowladda Jubbaland ayaa wada mashruuc weyn oo hadda gabagabo maraya kaas oo biyaha webiga Jubba lagaga soo jiidayo deegaanka Yoontoy oo biyo siin doona in ka badan 1,500,000 oo kun oo qof oo isugu jira beeraley iyo xoolo dhaqato. mashruucan ayaa ah midkii ugu weynaa ee biyogelin ah oo laga hirgeliyo dalka tan iyo markii ay dhacday dowladda dhexe ee Soomaaliya, waxaana la hirgeliyay shaybaarka biyaha oo ay gacanta ku hayaan wasaaradda tamarta iyo biyaha iyo hay'adda biyaha Jubbaland. waxaa kaloo xoogga la saaray horumarinta beeraha iyadoo beeraleyda ay dowladdu ka caawisay agabka beeraha lagaga shaqeeyo iyo dib u habaynta kanaalada ku burburay fatahaadihii iyo burburkii dalka oo muddo dheer aan wax dayactir ah ka helin, taas oo kor u qaaday wax soo saarka gudaha. garsoorku wuxuu bixiyaa adeeg cadaaladeed oo muhiim u ah ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta iyo xalinta khilaafaadka. waa hay'ad mas'uul ka ah in la xaqiijiyo in sharciga lagu dhaqmo, taas oo qayb weyn ka ah nabadda iyo horumarka bulshada. garsoorka waxaa loo arkaa saldhigga nabadda iyo xasilloonida bulshada maadaama uu hubiyo in sharciyada lagu maamulo si cadaalad ah. si loo dardargeliyo qeybaha kala duwan ee hay'adaha cadaaladda, dowladda Jubbaland ayaa samaysay dhammaan maxkamadihii iyo howlwadeennadii garsoorka ee ka howlgala deegaanada Jubbaland, iyadoo ay ugu dambaysay bahda cadaaladda ee gobolka Gedo oo dhawaan loo dhaariyay in si cadaalad ah ay u maamulaan kiisaska ay qabanayaan. saan ognahay garsoorku waa waxa ugu muhiimsan. dowladnimadu 3 rugni bay ku dhisan tahay oo garsoorku mid ka yahay. waa fulinta iyo hay'adda sharci dejinta baarlamaanka iyo garsoorka. waa institution madax bannaan oo labada kale la mid ah. ummaddu haddayna garsoor helin waxaa dhinaanaya dowladnimada, xataa nolosha bini aadamka. marka la joogay miyiga ee dadka ayna dowladnimo xataa shaqo ku lahayn, waxaa jira waxa la yidhaha xeerbeegti, odayaal, culimo, masale walba waa la yaqaanaa cidda loo diray. hadday shareeco noqoto oo wax jaraaxa iyo dhaawac iyo diye iyo ku saabsan culimaa loo diraa. hadday noqoto wax gar ah oo dadka dhex marayana waxaa jirtay dad geed fadhi ah oo ay u diri jireen dadku. waa dadka miyiga ku nool ee aan haysanin markaa tasiilaadka iyo facilitationkan ay helayaan dadka magaalooyinka iyo dowladnimadu. taa macnaheeda waxaad garanaysaa in garsoorku u yahay mid aan marna laga maarmi karin, marnaba aan laga maarmi karin. adeegyada bulshada, dowladdu waxay ku guulaysatay inay horumar ballaaran ka samayso adeegyada bulshada iyadoo xoogga saartay sidii loo dabooli lahaa baahiyaha bulshada. dowladda Jubbaland ayaa xoogga saartay ilaalinta adeeg bixinta iyadoo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jubbaland ay la wareegtay in ka badan 50 iskuul oo ku kala yaala deegaanada Jubbaland. dowladda ayaa si joogto ah u bixisa qarashaadka ku baxa macallimiinta iyo agabka ay ardaydu u baahan yihiin. nidaamka waxbarashada oo ah mid tayo sare leh ayaa ka dhigaya in heerarka kala duwan ee ardayda Jubbaland ay kaalmaha hore ka galaan imtixaanaadka guud ee dalka, taas oo caddayn u ah dadaalada joogtada ah ee dhanka waxbarashada. barnaamijyo waxbarasho ayaa laga hirgeliyey si loo kordhiyo tirada carruurta dhigata dugsiyada gaar ahaan tuulooyinka. dowladdu waxay sidoo kale hirgelisay barnaamijyo waxbarasho oo bilaasha si ay u caawiso qoysaska aan awoodin inay carruurtooda dugsiyada geeyaan. wasaaradda waxbarashada Jubbaland oo gacan ka helaysay hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR ayaa 10kii bishii February ee sanadkii 2019 waxay 4 iskuul oo kala haganaane rugta Khalid bin Waliid iyo iskuulka Jubba ka hirgelisay hanaanka shaybaarka, taas oo ardayda ku fududeysay inay si sahlan u fahmaan tijaabooyinka maadooyinka sayniska oo markii hore qoraal ku koobnaa. shaybaarada la geeyey 4 iskuul ayaana sida wasaaradda waxbarashadu sheegtay waxaa ku baxay $84,000 iyadoo ay ka faa'iideysanayaan arday tiradooda gaaraysa 1,290.
ayadoo 250 ka mid ah ay yihiin ardaydii ka soo noqotay xeryaha qaxootiga ee Dadaab. adeegyada caafimaadka ayaa horumar baaxad leh laga gaaray iyadoo wasaaradda caafimaadka Jubbaland ay howlwadeennada iyo khubaro caafimaad ka howlgelisay dhammaan deegaanada iyo degmooyinka Jubbaland. dawladdu waxay dhistay isbitaallo iyo xarumo caafimaad oo cusub iyadoo sidoo kale kordhisay helitaanka daawooyin muhiim ah iyo barnaamijyada talaalka carruurta. 5 sano ee la soo dhaafay waxay dawladda Jubbaland dib u dhis ku samaysay waddooyin burbursanaa iyo goobo kale oo muhiim u ah bulshada, kuwaas oo laga fuliyey deegaano hoostaga degmooyinka Jamaame iyo Kismaayo.